markii ugu horeysay ee warbaahinta Iiraan ay soo bandhigto waxa ay ku tilmaameen haraadiga burburkii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib markii xalayta dowladda dalka Iiraan ay sheegatay in ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda dalka Mareykanka. xubinta ugu dambaysa ee barnaamijkeenan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii alla yiraahdo ee daawada hawlday mala'aanin. sirdoonka Mareykanka xog ay la wadaageen dowladda dalka Mareykanka ayay ku sheegeen Iiraan inay awood buuxda u leedahay in ay gantaaladeeda ku weerar tagto iyo weliba diyaaradaha cidu aysan wadinin ee droniska loo yaqaano. hadalkan ayaa si toos uga hor imaanaya hadalkii madaxweyne Donald Trump uu ku celcelinayay tan iyo intii dagaalku uu bilowday in ay gebi ahaanba ay gantaaladii Iiraan iyo meelihii laga ridayeyba ay dhulka dhigeen, wax ka harayna aysan jirinin. iyo weliba wasiirkiisa gaashaandhigga Peter Hegseth oo sidaas aad iyo aad ugu celceliyey. xog ayaynu idinkaga haynaa. dowladda Mareykanka wararkeeda ayaanu ku jirnaaye wasiirka gaashaandhigga ayaa laga soo warramayaa in uu cayriyey markaas saraakiishii ugu sarreysay dowladda dalka Mareykanka uguna khibradda badnayd kadib markii ay sheegeen ciidamo in la geeyo gudaha dalka Mareykanka, gudaha dalka Iiraan, in dhimasho, dhaawac iyo cawaaqib xumo lagala kulmayo. waxaan idiin haynaa xog la yaab leh oo arrintaa ku saabsan. sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Cabbaas Caraachi ayaa bartiisa Twitterka qoraal soo dhigay hadal hayn fara badan dhaliyey. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, aynu ku bilownay marka ugu horeysa war ka soo baxay Israa'iil ayaa lagu sheegay laamaheeda ammaanka in ay adag tahay in markaas sida uu mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee Israa'iiliyiinta mid ka mid ah militarigooda uu sheegay in markaa hub ka dhigis lagu sameeyo Xisbullah. arrintan ayaa toos uga hor imaanaysa warka wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Katz la yiraahdo iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada Israa'iiliyiinta oo sheegay inta aan Lebnaan weerarka lagu qaadinin wixii ka dambeeyay labadii bishii Maaj ee soo dhaaftay markii Xisbullah dagaalka ay ku soo biireen in ay hadafku u ahaa dagaalka loo galay ilaa iyo haatan socda Xisbullah in la burburiyo hubka dhigisna lagu sameeyo. laakiin sargaalkan sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iiliyiinta waxa uu sheegay in ay tahay arrin aan macquul ahayn in Xisbullah hubka laga dhigo goolka ciidamada Israa'iilna maba aha ayuu yiri, oo waxa uu khilaafay wasiirkiisii gaashaandhigga iyo taliyihiisii ciidanka oo sida qoraalkan aad ka arkaysaan xagga hoose labaduba sheegay inuu hadafku uu yahay hubka dhigis in lagu sameeyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Xisbullah iyo Israa'iil ay isku baaba'een, dhimasho iyo dhaawac fara badan labada dhinacba ay martigelinayaan iyo burbur baaxad weyn. Israa'iilna ay sheegtay in ay doonayso markaa inay qabsato qayb ka mid ah dhulka Lebnaan. 50 sane la soo dhaafay in ka badan 6 jeer ayay Israa'iil Lebnaan qabsatay, mar walbana muddo kadib way ka soo baxaysay. dagaalkan haatan socda wuxuu kaga duwan yahay lama garanayo ayaa la leeyahay kuwii hore, balse waxay leeyihiin khubarada qaarkood dhabbihii hore inbuu ku soo dhammaan doonaa oo Israa'iil Lebnaan ma haysan doonto. meesha Israa'iil ay leedahay buffer zone ayaynu ka dhisanaynaa, isla mar ahaantaasna degmooyinka iyo tuulooyinka xuduudda ku taxan oo dhan qaar ka mid ah amar lagu bixiyey in ay ka guuraan, qaarna duqayn iyo burbur fara badan loo geystay. وهاجاك داود إلى دامنا هالكاس أنت سوغا بحنو مركب كي يقول فرانسيسكو ليه أيا كتلا بي مركز بيمرين كهرموز إيران أي معموشو هشيس أي أرنتانو كنت من فرانسيسكا إيه دولة دالك إيران نحمري إيران عدي سنوه قرانو هالكا مري كرتانا حميراتي مجرتو عالم كله وحا أوليه هاي وراركا كيمانيا عدة أود عالم كمان تلا اللي قدم بيو مركز احترام يا شرفت الله يو وح احترام كمضن يوليبا أود أن لا إنكري كرين الإسكالة وعدي هرموز فرطة مفتاح حاسو جاب كدولة الدالك إيران أيو كجرا عد أي قدام فريساني سنة مجرتو سيدا أي إيران شاكتي من حوين دونالد ترامب أي laba habeen ka hor khudbadii uu soo jeeshay ee sida weyn isha loogu hayay ayuu waxa uu sheegay wadamada ay qusayso in ay furaan Hormuz, waxaana halkaa ka muuqata inuusan awoodna u lahayn
kuna dhicinin inuu furo laakiin iiraan cidda ayadu doonta ay ka furayso fariintiisuna waxay ku wajahnay dabcan dowladda dalka shiinaha oo haatan ayada iyo bakistan ay arrimo fara badan ay karkarinayaan infact 5 qodob ayay soo saareen oo ay markaa doonayaan in xal loogu helo marinka hormuus iyo weliba sidii dagaalka loo soo gabagabayn lahaa barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan laakiin iiraan cidday la heshiiso unbaa halkaan maraysa waayahay intaana muuqaalkan kuusoo gudbinin kan aan kuusoo hormariyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka iiraan jaale cabaas caraaji ayaa waxa uu sheegay burburinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ula jeeda buundooyinkan Donald Trump uu burburiye kuna faanay inuu burburiye bal video ayuu Donald Trump soo dhigay buundo bulshada dadka rayidka ay isticmaalayaan in la burburiya under the international law waa war crime weeyaan kaabayaasha dhaqaalinta burburitaanka buundooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Iiraan ku bishaarayso in aysan ku kalifaynin ku khasbaynin inay isdhiibto si kale haddaanu dhahno ama burburi buundooyinka ama iskuullada burburi ama isbitaalada burburi iyo goobaha kale bulshada rayidka ah oo ay markaas gudhigu ah noloshooda Iiraan isdhiibi mayso waxaana muuqda ayuu yiri arrintan inay tahay defeat guul darro iyo in laga adkaaday Donald Trump isla mar ahaantaasna moral collapse uu ku dhacay odaygu uu isku dhex yaacay adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya ku hadal keliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 وهاجاك هذا هو واحد وشيء عباس عراشي إنه يتهاي هالكار مركا وحكم وضع moral collapse دونالد ترامب وير كلن أيوكو قاضي عباس عراشي هذا الكيس النحر كيس وحوي هاي أتكيسي بالله هاي ديار بالون هاي وحكستون وقولنا إلى الإسلام له حسابتها كنت رسلنا على هذا القاضي له وحمينكي حاليها تجي أيو لي هاي عباس عراشي بودوي كان oo kale ayay sidoo kale Israa'iil ay markaas koonfurta Lubnaan laftigeedu ay duqeyn iyo burburin ay ku bilowday si ay markaa u kala goyso waayahay waxa dawladda loo soo socdo warbaahinta dawladda dalka iyo warbaahinta Iiraaniyiinta oo markii ugu horeysay soo bandhigay muuqaalo ay sheegeen inay tahay haraadigii burburkii diyaaradii habeenkii xalay tahay dawladda dalka Iiraan ay sheegtay in ay markaas soo riday waa inuu imaan doonaa goordhow sirdoonka dowladda dalka Mareykanka ayaa sheegay sirdoonka dowladda dalka Mareykanka ayaa daawadayaal sheegay dhanka kale in ay Iiraan awood buuxda ay u leedahay in ay markaas duqeymo ay geysato gantaaladeeda ridada dheer ay u isticmaalayso si kasta oo markaa Iiraan loo sheegay in si kasta oo Iiraan loo duqeynayay bil iyo dhowrka maalmood oo dagaalku u socday waa maxay muhiimadda arrintan ay leedahay muhiimadda arrintan ay leedahay waxa weeye daawadayaal madaxweynaha dalka Mareykanka iyo wasiirkiisa gaashaandhigu waxay yiraahdeen Iiraan gantaalada meesha ay ka ridaysay oo dhan dhulka ayaanu la sinay oo haba yaraatee wax jira maahan oo waxaynu ka dhignay dukun daakun sirdoonkii Mareykankuna waxa uu leeyahay arrintu sidaas ma ahan hadalkooda iyadoo sii watay waxa ay sheegeen sirdoonka Mareykanka daraasadii ugu dambeysay oo ay sameeyeen markaas inay Iiraan wali awood u leedahay Iiraan inay wali ay haysato 50% inay haysato goobihii markaa gantaalada ay ka ridaysay despite weeks of duqeyn isdaba joog ah si kastoo weerar loogu qaaday Iiraan oo duqeyn iyo burbur ba'an loo geystay wali awooddaas ayay leedahay warkaasna waxaa CNN u sheegay markaas shakhsiyaad xogogaala oo ay wareysteen oo warbaahinta Mareykanka laftigeeda ayaa tabinaysa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay warbixintu waxay sheegtay inay Iiraan wali sidoo kale awood ay u leedahay inay Iiraan wali ay haysatay diyaaradaha Joneska oo markaas kumanaan ah ee kuwa waweyga ah waxa loo yaqaanaa suicide drones marka ay meeshii iyo hadafkoodii ay asiibaan ayaguna waa burburayaan oo wax ka soo noqonaya malahan marka suicide drones ayaa la yiraahdaa inay haystaan 50% inay wali ay haystaan diyaaradahaas awood buuxdana Iiraan ay u leedahay ayuu yiri shakhsiyaadka markaas xogta la wadaagay CNN sidaan hore u sheegay arrintan toos waxay uga imaanaysaa warkii Donald Trump iyo waliba
wasiirkiisa gaashaandhigga muxuu yidhi haddaba Donald Trump waxa uu yidhi Iiraan gebi ahaanba waxa aynu burburinay awoodeedii ay gantaalada markaas ay ku ridaysay iyo weliba diyaaradaha droniska dramatically cartel si weyn ayaynu u burburinay oo dib ayaanu u celinay waxaan jirin oo kale ayaanu ka dhignay ayuu yidhi kala wareega ma maqli jirtay saas ayaanu ka dhignay ayuu leeyahay waynu burburinay iyo weliba warshadahoodii hubka sameynayay iyo gantaalada markaas rocketska loo yaqaano meelihii markaa laga soo ridayay waxa uuna sheegay in ay markaas aad iyo aad u burburiyeen waxa harayna ay yihiin wax yar oo fara ku tirisa halkan warbixinta sirdoonka arrintaa in ka badan ayay sheegaysaa kumanaan kun inay haystaan 50% inay haystaan Donald Trump wuxuu yidhi xiyar ayaa ka hadlay sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ayaa ku celceliyey in fara badan dagaalka bisha iyo xoogaaga socday 90% weeraradii 90% gantaaladoodii iyo awoodoodii dhulka ayaan dhignay ayuu yidhi adigaan kuu daayay daawade dad warka sirdoonka markaad eegtid iyo Donald Trump iyo Pete Hegseth oo xaaladdu aad iyo aad ugu foorarno dhaqaale ahaan siyaasad ahaan sumcad ahaan iyo weliba ku guul daraystay inay Iiraan soo afjaraan oo ay gacanta ay fashilaan ay raahdeen dowladda dalka Iiraan iyo warbixinta sirdoonka markaad isku eegtid maxaa kaaga baxay qoraalka xagga hoose daawadan wala wadaag adigoo aad iyo aad u mahadsan وحقاك داود يلا ولي واحد يكون جنا وراك مرايكن كيمانية halkaan sida arkaysaanba Chris Murphy ninka la yiraahdo senatorka ayaa waxa uu soo bandhigay qoraalkan uu ku sheegaya markaas in dowladda dalka Mareykanka wasiirkeeda gaashaandhigga ay u eg tahay markaas in ay taliyayaashii sare ee khibradda lahaa ee uu cayriyey ay ku yiraahdeen dagaalka Iiraan lagula jiro is unworkable, disastrous and deadly. waa mid aan lagu guuleysan karaynin burbur iyo khasaare dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba uu ka dhalanayo iyo nafba iyo maalba uu ka dhalanayo sidaas awgeedna Pete Hegseth oo wasiirka gaashaandhigga oo ku guul daraystay dagaalkan inuu natiijo weyn oo la taaban karo oo ka keenay ayaa cayrinaya saraakiishiisii ugu sarreysay ugu khibradda badnayd 10 of them in badan oo ka mid ah markii wasiirka gaashaandhigga khubaradii militariga asaga ka aqoonta kartida iyo khibradda badnayd ay Iiraan garan Pete Hegseth sargaal hoose ayuu ahaa xataa darajooyinka waaweyn ee saraakiisha ma uusan gaarinin meel dhexe xataa sooma gaarinin raggii ugu sarreeyey ayuu eryayaa sababtuna waxay tahay ayaa la leeyahay sida warar kala duwan ay sheegayaan ciidamada loo wado gudaha Iiraan in la geeyo in dhiig fara badan oo ku daadanayo guul laga keeni karaana aysan jirin code sida wararku ay sheegayaan isla mar ahaantaasna saraakiishaanu dagaalkii ay ka hor timid ay yiraahdeen waxaanu wax shaqaynaya ma ahan dagaalka ka soo bax Pete Hegseth waxaa la leeyahay waa shakhsiga kale ee ku xiga in xilka laga qaado maadaama Donald Trump laftigiisa uu isku dhex yaacay oo saraakiishiisii qaar dagaalka uu ka qaaday xilkii gabadhii wasiir ahayd garyaqaanka guud uu xilkii ka qaaday marka labadooda waxa ka muuqata ayaa leeyahay khalkhal iyo isku dhexyaac iyo firing waa ku cayrinay ilaa ay isku soo haraan inaan ayaga waxba dhaaminin ayaa la leeyahay aqoon iyo khibrad aan haba yaraatee lahayn laakiin yesman halkaas ayay ku socdaan ayay leeyihiin marka dadka aadka ogaga faallooda arrimaha dowladda dalka Mareykanka iyo militarigeeda arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dagaalku uusan hadaf uu leeyahay aysan jiranin haddii hadafyo dhowr jeera afka lagu dhuftayna aan lagu guuleysanin oo warbixintii sirdoonka Mareykanka hadday Somali TV kusoo gudbisay ay daliil cad u tahay warkuma kusoo gaaray daawada soo dhawaada waxaagaag daawadayaal warbaahinta Iiraan ayaa soo bandhigtay sheegatayna markaas diyaaraddii xalayta la soo riday inay tahay raadkeedii way noo soo socdaan muuqaaladu markaas actually warbixintan dadkiina aan la soconaan ka hormariyo Iiraan xalay waxay sheegatay in ay laamaha ammaanka ee Iiraan difaaca cirku ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay soo rideen Iiraan in badan waxaa lagu eedeeyay aaway waxa ay soo rideen waa aragnay kuwii ku jiray baakinka dalka Sacuudiga yaalay waanu aragnay
oo ay weerareen tii maraykanku uu sheegay in laga soo dhaawac la gaarsiiyey waynu aragnay iyo diyaarado kale laakiin ma aanan arkanin muuqaalo arrintaa ku saabsan marka dowladda iiraan xalay waxay sheegtay diyaarad inay soo riday haatan wax yar ka hor xilliga barnaamijka aanu duubayno tasmiim ayaa waxa ay soo bandhigtay muuqaalo ay leedahay waa diyaaradii xalayta la soo riday haddaba muuqaalada ayaanu idinla wadaagaynaa oo ah markaa kuwii ugu horreeyey oo aynu aragno waa muuqaaladan ay markaas ay soo bandhigtay sidaad arkaysaanba tasmiim news ayaa ku yaala midda ugu koreysa haddii aynu eegno ee midabka dambaska leh diyaaraddaas waxaa la sheegay burburkaas inuu ka mid yahay waxaa idiin muuqda diyaaradii markaa xalayta lasoo riday oo markaas aad arkaysaan yurub inay ku taalo tanna SO-17 ay ku taalo waxaan o dhan waa isku diyaarad ayay leeyihiin qaybahan kala duwana waa qaybo kala duwan oo diyaaradda markaas ka mid ah waxaa xusid mudan daawadayaal iiraan weerar difaaceeda cirku inuu weli shaqaynayo oo ay gantaalo ridayso laakiin aysan marnaba la barbar dhigi karaynin awoodda marka la isku daro maraykanka iyo awoodda maraykanka aysan u babac dhigi karaynin laga awood badan yahay dhinaca cirka israa'iilna marka lagu sii daro quwad weyn oo aan la dhayalsan karaynin labadooduba ay yihiin haddana inay diyaarad soo rido sida iiraan ay sheegatay waa arrin aad iyo aad weyn waxaana soo badanaya khasaaraha maraykanka kasoo gaaraya dagaalka dhinaca kale daawadaha sharafta iyo karaamada leh waxaa xusid mudan in Centacom ay soo bandhigtay qoraal habeenkii xalayta ahayd ayna gebi ahaanba beenisay in diyaarad laga soo riday oo dowladda maraykanku waxay tiri arrintaasu sal iyo raad haba yaraatee ma lahan laakiin muuqaaladan ayaa iyaga laftigoodu macno kale u yeelaya arrinta waxaa xusid mudan ilaa iyo haatan muuqaaladan inaysan warbaahinta dowladda dalka maraykanku aysan ka warbixinin aysan la sheeginin markaas inay diyaaradahan burburkaanu uu yahay diyaaradda laga soo riday inay qirtaan haddii ay dhab tahayna waxaa la leeyahay waa arrin markaas aan suurtagal ahayn sababtuna waxay tahay cadowgooda oo iiraan ah ayay garab u noqonaysaa marka wadamadu ma sheegtaan ama iiraan ha ahaato ama maraykan ha ahaato ama israa'iil ha ahaatee markii uu dhibaato fara badan ay soo gaadho xilliga dagaalka waa la qariyaa si dadkana aan niyadjab loogu ridinin ciidamadana niyadjab loogu ridinin laakiin burburku iyo khasaaraha dagaalkan ka dhashay hadday ahaan lahayd dhinaca iiraan dhinaca maraykanka iyo israa'iilba waxaa laleeyahay wuu ka baaxad wen yahay waxa lasoo bandhigayo iyo wararka saxaafadda la isla wadaagayo muddo yar kadib markii dagaalka uu dhammaado oo dib la isugu noqdona waxaa soo baxaya warar waaweyn laakiin haatan khalkhalka ugu weyn ee dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha meesha uu haystaa waa dowladda dalka maraykanka maalmaha soo socdana waxaa la rajaynayaa in la arko Donald Trump oo tilaabooyin kala qaadaya oo markaas tusaya frustrationka haysta iyo xaaladdu say tahay gaar ahaan marka wadamada reer Yurub ay bilaabaan qaar ka mid a sida Faransiiska oo kale haatan in ay la heshiiyaan Iiraan oo hormuus ay maraan Jarmalka ayaa ku xigi kara ayaa la leeyahay oo asaga laftigiisu arrintan aad iyo aad uga shaqeynaya oo shalayta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Shiinaha